ku dhawaad 9 qof ayaa ku dhimatay banaanbaxyo rabshado wata oo ka socda waddanka Itoobiya kuwaas oo ka dhashay dilka heesaa caanka ah waddankaas. dibadbaxyada xoogooda ayaa ka socda gobolka Oromada iyo magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa sida uu sheegay afayeen u hadlay booliiska Itoobiya. kumanaan kun oo taageerayaal ah oo ka careysan dilka Hagalu Hundeza ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee waddankaas oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. fanaanka ayaa la toogtay isniintii isagoo gaarigiisa wata. booliiska ayaa xiray 35 qof oo ku jiro siyaasiga caanka ah Jawhar Maxamed. ilaa hadda ma cadda cidda dishay heesaaga Hagalu Hundeza oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, laakiin booliisku waxay sheegeen inay xireen 2 qof oo looga shakisan yahay dilkaas. suxufiga siyaasiga u xubsiibtay Jawhar Maxamed ayaan la fahmin sababta loo xiray, balse xarigiisa ayaa uga sii daray xaaladda maadaama uu hadda yahay siyaasiga ugu taageerada badan xagga Oromada. Hagalu oo 34 jir ahaa ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis la aaso. heesihiisa ayuu diiradda ku saari jiray xaqa ka maqan dadka Oromada wuxuuna ku jiray dadkii sababay isbeddelkii ka dhacay waddanka Itoobiya 2018. 81 qof ayaa la dilay, 3 ka mid ah waa booliiska sida gaarka u tababaran ee gobolka Oromia, ayuu yiri Ararza Mardeza oo ah madaxa booliiska ee gobolka Oromia. boqolaal ayaa dhaawacantay, balse dhibaatada ugu badani waa inay dadku si bahalnimaha u burburinayaan hantida guud iyo midda gaarka ayuu isna yiri afayeen kale u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Kadajawo Balja oo la hadlay BBC-da. ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa ku fashilmay inay xakameeyaan dadweynaha careysan, waxaana ra'iisul wasaare Abiy uu amray inay militarigu soo galaan caasimadda. wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegaysaa in rabshaduhu ay xoogeysteen. markii hore arrintu waxay ka bilaabatay dilka fanaanka, laakiin waxay isku bedeshay muujinta naceebka loo qabo xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran Itoobiya ayaa aaminsan in wiilkooda Abiy uu rabo xukun xoog ku dhisan iyo inuu qabiilka Amxaarada u arko geesiyaal xusuus mudan. sidoo kale waxaa lagu haystaa ra'iisul wasaare Abiy inuu muddo kororsi samaystay. qabiilka Tigreega oo si weyn u diidan xukunka Abiy ayaa iyaguna ku biiray rabshadaha, waxayna sheegayaan inuu Abiy Ahmed duminayo Itoobiyada federaalka ah. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa lagu haystaa inuusan rabin inuu sii jiro nidaamka federaalka ah Itoobiya, balse waxaa si weyn oo wadajir ah ugu hor yimid qowmiyadaha Itoobiya oo dhan oo xal u arka federaalka. xukuumadda Addis Ababa ayaa looga digay inay tacaddi kula kacdo dibadbaxayaasha xilli hadda la soo tabinayo dhimasho iyo dhaawac fara badan. Abiy Ahmed ayaa la soo sheegaya inuu militariga amar ku siiyay inay xoog ku soo afjaraan xiisada taagan, lamana yaqaana waxa ka dhalan kara amarka noocaas ah. internetka waddanka Itoobiya ayaa hawada laga saaray, waxaana jirta cabsi aad u ballaaran. meedka fanaanka waxaa la geeyay magaalada uu ka soo jeeday Ambo oo ku taalla galbeedka caasimadda Addis Ababa, balse dadka rabshadaha wada ayaa ku soo laabta caasimadda iyagoo dab qabadsiiyay meelo badan oo muhiim ah. isku socodka iyo shaqooyinka magaalada Addis Ababa ayaa noqday kuwo goosgoos ah, halka gobolka Oromia ay noloshuba istaagtay. Tarnaha Gamta oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga Jawhar Maxamed hogaamiyo ee Oromo Federalist Congress ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xariga loo geystay Jawhar Maxamed iyo in loo diiday inay booqdaan. xariga ninkan ayaa la sheegayaa inuu uga sii daray xaaladda waddanka Itoobiya maadaama inta badan dhalinyarada Oromadu ay isaga taageersan yihiin. walaac badan ayaa laga qabaa mustaqbalka Itoobiya sida ay sheegayaan falanqeeyaasha arrimaha gobolka. adeegsiga awoodda ciidan, muddo kororsiga uu samaystay Abiy, diidmadiisa nidaamka federaalka ah iyo inuu lumiyo taageerada qowmiyadiisa oo dhanka Jawhar Maxamed u wareegtay ayaa saadaal xun ka bixinaysa mustaqbalka Itoobiya iyo xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.